Göbekte küçüklük, gözler mağrur. Geçiyor kükrerek aslan gibi Somali genç subay ve astsubaylar. munaasabaddan oo ahayd mid tababar loogu soo xiriyay saraakiil iyo saraakiil xigeenno kusoo biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa galay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Abdulle taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo matalaysay dowladda Turkiga. ugu madasha waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliska ciidanka Turkisom ee Soomaaliya. sharaf weyn ayay noo tahay inaan maanta soo gaarnay gabagabadii tababarkii muddada dheer halkan ka socday annagoo dareemi karna waqtiga adkaay ee ay dunidu soo martay cudurka faafa oo saamaynta ba'an ku hayay inaan maanta halkaan ay tahay qalin jabintii saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasina runtii gudoomiye waxay ina tusinaysaa ayadoo marxaladaas adag lagu jiray in marnaba tababarkii halkaan ka socday uusan kala go'gelin waxay taas muujinaysaa muhiimadda iyo runtii hadaafta aan leenahay sida ay nooga go'an tahay. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Somali Silahlı Kuvvetleri eğitici ve öğretmenleri tarafından eğitilen 71 subay ve 88 asubay almış oldukları değerli bilgi ve eğitimlerle öncelikle Somali'nin ve mütakiben tüm bölgenin güvenlik, barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunacaklardır. macallimiinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Turkiga waxa ay soo saareen saraakiisha iyo saraakiil xigeenada maanta qalin jibinaysa oo gaaraya 71 sargaal iyo 88 sargaal xigeenno. waxaan filayaa tababarka iyo waxbarashadan tayada leh ee aad qaadateen inaad wax weyn uga qaban doontaan dalkiina iyo qaaradda aad ku nooshihiin. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya dadaal xooggan ay gelisay dib u dhiska ciidanka. maanta waxaa noo muuqda dadaaladii ay bixiyeen dowladda qeybeeda kala duwan guud ahaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee taliskeeda inaan aragno saraakiil xigeen iyo dabley oo kuwa ka horeeyay meeshan ka qalin jibiyay ee kuwaan maanta ida muuqdan aan soo gaarnay taasoo ay qayb ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ka dhigo kuwa anfaca dadka dalka iyo diintaba. waxaa kaloo rabaa inaan la dardaarmo ururka shanaad ee guutada Gorgor oo aan maanta sagootinayno si ay u soo qaataan tababarka takhasuskooda ayna ugu soo qaataan dalka walaalana ee Turki. waxaan kula dardaarmaa inay sharafkii iyo karaamadii ee ummadda Soomaaliyeed ay ugu diyaar garoobeen inay dhiigooda ku bixiyaan inay ilaaliyaan iyagoo sharfan oo aad iyo aad u qiimo badan sidoo kale wax badanna ka soo faa'iidaystay inay dib noogu soo laabtaan. ilaahay idinkiisa waxaan idin rajaynaynaa idinkoo caafimaad qaba inaad soo laabataan. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa fagaarahan ka sheegay in Soomaaliya ay ka soo kabanayso dhismaha ciidanka iyo dhinacyo kala duwan. waa la socotaan shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta ay ka fikirayaan waa amni. Soomaaliya waa waddan barwaaqo ah. shacabkiisa hadday amni helaan dhulkooda ku filan iyo baddooda
tilmaami kara taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidankan gobollo kala duwan ka keenay oo halkan isugu keenay waxay caddaynaysaa xoogga dalka Soomaaliyeed in tallaabo u qaaday. waxaan aaminsanahay sawirka ku saaray Soomaaliya inay ka gudbaysay oo ahayd amni darro. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka guulaysto